السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wanasad ikram maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo wax oo la dhaho catastrophizing waxa waaye kelmadda catastrophize waxa waaye musiiba macnaheeda so dad badan oo waxaa jiraan markii ay dhibaato la kulmaan oo wax ka dhigayaan musiiba inay ka dhigayaan wax weyn waaye مثلا هذا example كسي maybe أرضيا وحولي هاي امتحان كسوق امتحان حساب ولي هاي حسابتي maybe إنه قاد وقفي عنين أما نيدا وحوق شنا oh my goodness امتحان كان وكل دعا and then امتحانك وكل عام كو أكينني وحوق كسي درا امتحانك وكل دعا جامعة وعليك صبرنا ولقي شق مهلاي مستقبل كيغا بودا ماضي so هير وحولا جار مصيبة دي إنه سيكور ليو another example waxaa dhici karto masalan naaga ninkeeda maqan ama wuu soo daaha isla markii maskaxda waxay gashanaysaa alaba ayay hoogayay ninkii maanta wuu dhintay hadeertaan waxaa la ii keenaa meydkiisa la iisoo dhigaa inta camal sheekadaas aad iyo aaday u badatay especially labadan beri oo sidii koronada u dhacday iyo adduunyada musiibadeed iyo mashaakilkii aad iyo aad u batay so more and more waxaan aragnaa mashaakilkaaseeto iyo dadka oo wax kasta musiiba ka dhigayaan ama musiibada hor ordayaan so dadka maxay waxaas u sameeyaan laba sababaa dhici kartay u sameeyaan dadka qaarkood waxa musiibo ooga dhigaan si ay isku dhiirageliyaan maybe oo waxay isdhahayaan maybe oh my goodness mustaqbalkayga wuu dhamaanaya oo maree mustaqbalkayga inuu dhamaado soo hadeertaanan dadaala antaas dhibkeeda leedahay because maskaxda bani aadanka waxa walwalkaas badan uma adkaysan karto soo hero waxay gaaraysaa maskaxda inay isxirto oo ardaygaas xataa hadduu isku dayo inuu wax akhristo oo dadaalo maskaxdiisa wax ma gali karto because already wuxuu gaaray maskaxda xadkeeda wax ka baxsan oo walwal ahay gaartay aad iyo aad walwalka markuu bato maskaxda way shutdown ku dhacay way isxiraysaa so waxaa kaloo dhici karto inay qofka waxa musiibo ooga dhigaysa si ay nafteeda ugu diyaariso musiibada soo socoto si ay isku sii adkaysa masalan haddii waxa waaye musiibo aad filahaysa naxtinteeda way yar tahay laakiin musiibo aadan filahaynin naxtin oo aad naxtinteeda way weyn tahay so masalan hooyada ama naagta oo dhehaysa alla ninkii wuu dhintay waxay maskaxdeeda usii diyaarinaysaa haddii lacala uu ninkii dhintay oo lasoo sheegabo inuu devastated noqonin inay waxa noqonin shooga inuu aad u weynaanin or at least waxa waaye wax ay filahaysa waaye soo jugta kastoo way yar tahay camal waaye which waxaan dhahnaa anaga protection waaye qofka nafteeda still aamin gelinaysa ama badbaadinaysa intii jugta xoog igugu dhici lahayd jugta waaba isku sii diyaaraha because jug aa filanaysid wax weyn ma laha ama dhib ma laha anyway so again sidaan dhahay depressionka I think buufiska iyo walwalka badanbo dadka oo wax kasta musiibeystaan way ka walwal badan yihiin wayna ka depression badan yihiin so maxaa laga qaban karaa waa su-aasha maxaa laga qaban karaa so saddex qodobaan kuu sheega oo laga qaban karo midda koobaad waxa waaye horta qofka in ay fahamsanaato inuu wixii oo nagu dhacayo inuu nagu dhacayo qofka inay raali ku ahaatay ee ku qanacsanaato waaye ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yiri qul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana yacni mana soo gaaraya ilaa wixii noo qoran ma ahane so hadday noo qoran tahay inuu ninkaaga soo dhinto hadday kuu qoran tahay inuu mustaqbalkaaga dhamaado hadday kuu qoran tahay inuu corona ay kugu dhacdo ama aa u dhimatid corona way kugu dhacaysaa ama musiibo ka dhig ama boodbood ama wax kasta aa suubisid ma bedelaysa qadartaada oo wixii kuu qoran waa soo cuskanaysaa so qofka bani aadanka ahna especially muslimka ah inay aaminsanaata ee ku qanacsanaata waaye daad wixii u qoran inuu soo gaarayo so midda koowaad waxa waaye anaka acceptance aan dhahna raaligelin waaye inaa qofka ay raali ku ahaato wixii oo u qoran alxamdulilahna ku dhahdo taas midda koowaad waaye midda labaad waxa waaye take control so markaa naftaada ku daasad walwal ama depressionka waxa waaye depression iyo walwal waa kusii jiidanayaan kuma soo celinayaan haddii ay dhibaato jirto waa caadi waaye kulligeena dhibaatooyin waa qabnaa qof kasta dhibaato way qabtaa laakiin dhibaatada inaa waxa waaye waqti siisid aa ka walwashid wixii laga walwalayo ama wixii walwal istaahilo waqtigaas laakiin waqti mucayan inuu ahaado waayo nus sac ha ahaato hal sac ha ahaato laakiin 24 sac ma noqon karto maanta dhan kama fikiri kartid musiibo iyo walwal iyo
عذر especially wax ka bedeli karin يعني waqtiga markaan ku dhahayo saacad qaada nus saac qaada aad ka fikirtid mushkilada waxa waaye fiiri horta waxaan wax ka qaban kara miya waxaan wax ka bedeli kara miya ha hadee tahay ka qabo wixii ka qaban lahayd maya hadee tahayne amaan see because waxa waaye taas marka tii alla waaye marka ilaahay u daay taas midda labaad waaye midda saddexaadne is very important dadka badankood aan la kulmo markii ay dhibaatooyinka ii sheegtaan ama mashaakil ii sheegaan waxaan dhahaa haddii uu saaxiibka ama saaxiibta ay dhibkan qabi lahayd maxaa dhihi lahayd and subxaanallah dadka dhan waa yaqaanin waxay dhihi lahaayeen saaxiibkooda waar cuudi bilaysan dhihi lahaay war musiibada ha hor ordinan dhihi lahaay waxaan dhihi lahaay qadar allahu maa shaa facal waxaan dhihi lahaay saaniisaan kulligeena aad iyo aad waxaan ugu fiicannahay inaan dhahno dadka laakiin nafteena ma dhihi karni so naftaada saaxiibka dhigo naftaada wixii a saaxiibka dhihi lahayd dheh naftaada because it's haddii aadan dadka adiba haddaa iswaani karin maxaa waani kartaa adi iswaani koodii naftaada u sheeg khayrka first markaas kadib dadka kala tali khayrka insha allah intaas waxaan rabaa inaan saddexdaas idiin soo gudbiyo insha allah ilaahay dadka musiibada hor ordaayeen managa dhigo haddaan nahayna ilaahay hana qaboojiyo insha allah biizni illah waxaan rabaa inaa idin dhaho maalin wanaagsan iyo wellness with Ikram hana iloobin videoga inaa la sheergaraysid saaxiibadaada iyo ehelkaaga waa intaas iyo nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu